السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو وإذا مركله سودا وهذا قلب وناكسن فيديو وناكسن قف بحل جوته هاي وحرجينا دمانتي في عنتنا أنا ونون في عنها هاي. أنت بعد ما أنت فيديو جين محيح أنت أنا فيديو جين جود جلين أرنكي PS5 كا وليش كذي سوا ساعتها نكي دوني إنه كوجو ليست PS5 كاس فريقة شير جرا برنامج كا ان saadaali 8 kooxood ay u kala badinayaan labada kooxood finals ku guuleymanaya iyo cidii koobka qaadaysaba hadii aad ku guuleysato insha Allah PS5 ku waa xagaaga oo free ah hadaad magaalada joogto waa lagu keenaya hadii aad shibin u baahan tahayna shibinka anaga isku qabna waa lagu soo diraya inta PS5 ka hadaan ku soo dhaafay insha Allah barnaamijkeena guda galaya barnaamijkeena kaga hadli doono maanta laacibkii dunida ugu wanaagsanaa sanadka oo la bixiyay laacibkaas oo aynu sinu hore u wada ogeyn ba in ha laacib la iska wada garanay sidii awal loo garan jiray Messi Ronaldo ka sanadkan qaadaya sanadkan aynu iskaga wada garanay cid qaadaysa walow kubadii dahabka hay loo diiday in sanadkan loo dhigo laakiin FIFA waxay tiri maya anagu uma sameynayna sidaas marka laacibka Bayern Munich iyo Poland Lewandowski oo ku guuleystay laacibkii sanadka isagoo u qalmeeyay inuu ku guuleysto haddaba point-kaygu waxa weeyaan laba su'aalood oo anigu isweydiiyay marka koowaad waa su'aasha koowaad laacibka sanadka sidii Messi Ronaldo u soo baxeen waxa la siinayo iyaga marka laga reebo halkii mar ee uu ku guuleystay Modric waa maxay sababta kalifaysa in ciyaartoyda sometimes aan koob qaadin la siiyo laacibka su'aasha labaad ee isweydiiyayna waxa weeyaan Ronaldo iyo Messi mar dambe ما هانن دونا لاعب كسنة كوجون أكسنو ما دامو من نشاني صدن هذا من نص ده صدن مقصون نقول دونان ماشي أي تاجناين شاني تمن جدا شاني تمن كسنة ده جدا بي تيجون بقى مشرح هذا أو هذا لو كلا قاته هيستي مركب من نقول دونان نمن ماشي ودي تاجن أو كتر تمام مركله ما أنتوا كتر تمينو توب 2 توب 3 جيجا كتير مركله جرى أبانين كقاضي مركب سؤال شيء ده كواه هذا نسكت شو أبو maxaa lagu bixiyaa laacibnimadan awalkii hore nin koob qaado ma la siin jiray imkoon xasuusanaa dhalinyarta ciyaaraha intaas oo dhan la soo socotay inta cusub ma sheegay Chelsea iyo Man City la socotay iska kaftamaya no imka 2002 oo kale markii Brazil World Cup ka qaadaysay World Cup ka markuu jiro iyo koobka Yurub markay jiraan waxa lagu qiimeyn jiray ciyaartoyga ugu fiican labada koob markuu Ronaldo imika 2002 isagoo sanad iyo bar ciyaaraha ka maqnaa marin soo kacay hadana dhaawacmay oo soo galay Brazil soo raacay horyaalka Talyaaniga 8 ciyaarood ugu dambeeyay uu ka ciyaaray Interna kuma guuleysan ciyaarta ugu dambeysay la siiya afka ku dhufatay halkaas ay ku seegeen horyaalka Talyaaniga oo Inter kuma guuleysan horyaalka Talyaaniga 8 ciyaarood buu ka ciyaaray hadaanan been iska dhaafin 2 gool oo فرعون كدليي هل أدو تورا لح جول بدليي سديد عيارات وعيارة رونالدو لكن وول كاب كيبو يمدي واكي توب سكورر كها برازيل واكي وول كاب كهو قاضي أقاضي محو كهري سديد عيارات وحلقة وعياري سديد عيارات وول كاب كعيارة توب سكورر وول كاب كو قاضي وول كاب كو قاضي وحل سي لاعب كي دنيا وحل سي لاعب كي يوروب هذا سنة كودن مو عيارن sababta kaliftina waxay maadaama ninkani ahaa nin soo ciyaaray the World Cup ki oo qaaday World Cup ki taas lagu siiyay markuu kana faariq qaaday kadalik marka arinkan waxa la bedelay Messi iyo Ronaldo markay soo baxeen maadaama nin midkoodna World Cup qaadin waxa loo bedelay iyaga dartood oo minba u konton gool aan 60 gool u dhalinay sanadkii hadaba hadii iyaga dartood loo bedelay ma Messi iyo Ronaldo bay gaar u tahay loo bedelo markay goolasha badan dhaliyaan ay qaadaan mise din ciyaartooyinka kale sida Messi Ronaldo loo eego hadii ciyaartooyinka kale goolal badan dhaliyeen amba booskooda ugu wanaagsan sanadka ay qaadaan taas su'aasha iga keentay waxa weeyaan maanta laacibka goalkeeper-ka ugu wanaagsanaa waxa noqday Manuel Neuer wuxuu qaaday 3 koob oo ciyaarayba ciyaartooy fiican baa oo heer sare ciyaartooyda ugu fiicnaa Bayern Munich buu ahaa لكن باير يدا كأود بالنيد وحاول يقول كيبر مو هنا ويرر بوها مركز سببتن أولى يا هاي سداس وحويان أتلتيكو مدريد كوح جولال بدن لقى اللي يمين
waxaan uga gol leeyahay waad garanaysaan marka goalkeeperkii sanadka ugu wanaagsanaa inuu ay tin xagga u wareegay Real Madrid sidoo kale goolal badan lagama dhalin goalkeeperku uu tartamay marka anu shakhsiyan hadii goalkeeperkii sanadka ugu wanaagsanaa inta gool laga dhaliyay la oran lahaa maadaama Ronaldo iyo Messi maalintii 60 gool la dhaliyaan la siinayo in Oblak uu ku guuleysto goalkeeperka ugu wanaagsan sanadka ayay ilaahay shakhsiyan waxaad moodaysaa inay ka fiicnaayeen way Alisson ba waxa la siiyay waxa laga uu ka mid noqday 12 ciyaaryahan ugu wanaagsanaa loo codeeyay way Alisson uu ugu guuleysan way goalkeeperkii ugu wanaagsanaa marka أنا waxaan qabaa shakhsiyan in Manuel Neuer hadii sidii loo qiimeeyay laakiin sidii koobabka hadii lagu qiimeeyay ahayd Manuel Neuer baa iska lahaa xidignimada kaas waa point-kayga koowaad ka kaleen aad u la yaabay ilaa ay hadda iga daadagila waxa weeyaan why Jurgen Klopp uu ugu guuleystay coachkii ugu wanaagsanaa sanadka wax ka soo horjeeda Jurgen Klopp ma haysto because teamkan maanta taageero amba hadan teamwan la iga dhigo director owner whatever coachka koowadan doonan lahaa in teamkayga coach uga dhigan lahaa waa Jurgen Klopp because coach ka wanaagsan uma leeyin ma inuu jiro as a coach teamkiisa sidoo ku wado Henderson baad aragtay dhexda inuu Liverpool u hayo haddana Liverpool say wuxuu garaacay baad aragtay miyaanu jirin coach Bayern Munich oo kaalinta afraad ku jirta qabsaday hal ciyaar laga badinin Champions League qaaday koobkii Jarmalka qaaday Bundesliga qaaday aniga igu oran Bundesliga waxba ma hayo waxaas Bayern Munich koox kasta oo wajeeganaysa dhirbaaxay la dhacdo Yurub la yiraahdo ka awood badan timaada Barcelona sida ma Atalanta Barcelona sidaas oo sidan waxa doonto ninkaas tacticalkiisa because ciyaartoy cusub looma keenin tactically bu coachka uga badiyay kooxdiisuna waxaad moodaysaa intay doonto ka awood badantay kooxaha why wariya inta ciyaarooda laga badiyay inta ciyaarooda ninka laga badiyay iyo inta maxay ahayd waxaan aqsanay gaar lahaad inta ciyaarooda ninka laga badiyay iyo inta koobo uu qaadaa badan aqallayga saliimka uu diidayaa ninkaas in coachnimada sanadka la siin waayo saddex koob uu qaaday laba ciyaaroodna waa laga badiyay mush macquul marka Klopp uu qalmayay inuu tartamo laakiin coachka ugu wanaagsan uu qalmayn kaasina waa mid kale oo waxaan u arkaa in la yar kala jeclaysanay I don't know cidda vote gareynaysa loo vote gareynayo because jeclaysi ba meesha jira hadii ciyaartoy iyo kabtanayina waxa wada vote gareynaya Alisson baa noqon la goalkeeperka ugu wanaagsan maadaama 12 ciyaaryahanada ugu wanaagsan isagu goolka waayo goalkeeperkii sanadka ugu wanaagsan isaga qaadan lahaa soo taa intaasan kaga baxay waxaan u arkaa laacibkii uu qalmayay sanadka Lewandowski in la siiyay biladaas biladii saxda ahayd inta ku soo dhaaf meesha Ronaldo iyo Messi hadan ku soo noqdo Ronaldo iyo Messi may rag tartami doona mar dambe because all core Champions League hadii qaadana ba mid 50 gool dhaliyo kaasa qaadan jiray Barcelona iyo Juventus midna awoodeeda ma laha inay Champions League qaadaan hadii mid qaadayso Juventus baa laakiin Juventus Andri Pirlo wadata hadda khibrad ma laha time badan ma laha I don't know teamkooguna sax ma laakiin inay iyagu Barcelona uga dhawiin maadaama Barcelona 3-0 ay kaga badiyeen marka shakhsiyan waxaan aaminsanahay ma hadii World Cup qaadaan kaasoo isleeyahay waxa uu dhow Portugal more than Argentina sababtuna ma aha Ronaldo leeyahay uu uga dhow yahay sababtu waxa weeyaan Portugal hadda waxay haysataa 6-7 ciyaartoy oo aad u heer sareeya oo aanay haysan midooyinkii ugu dambeeyay sidii Rui Costa iyo Figo iyo Nuno Gomes iyo ay uga baxeen Deke iyo ragii birka isla jaan qaaday Euro 2004 oo kale sidii haayeen wali markaas si weynaadeen rag dhalinyaro ay haysato hadda isla soo wada shaqaaday marka si Argentina imka markii 2014 kii ciyaaraysa uga awood badnayd kooxaha kale ciyaartoy badan ay haysato caalamka magac ku lahaa
ayay imika Portugal uga awood badantay kuwa walow aanay ahayn kooxda loo sadaalinayo oo weli Faransiiska uu ka horeeyo. marka waxaan qabaa Ronaldo amba Messi meel wax uga dhicin World Cup ka qaadeen mise World Cup ma qaadayaan. World Cup haddaanay qaadin I think time koogii ay nimankaasi bilada Yurub baabaasadeen amba adduunka wuu dhamaaday. marka Mbappe iyo Neymar iyo iyagay u taalaa nimankaasi siday meesha u qabsanayaan waayo nimanka u leh ama u baahan inay tartamaan lagama soo qayb gelinayo waa Afrikaan. Mane me Mohamed Salah me Premier League may qaadin sanadkii Champions League may qaadin naam xaq Liverpool u hayaan eeg. I don't know sidii markii hore wax laga fikirayay George waa habrigi la siinayay laakiin Afrikaan inay tartamaano meel loo keeno ma jiro. wariya Ballon d'Or waxa la soo saaray teamkii ugu fiicnaa 12 ay u saadaalinayeen hal nin oo Afrikaan laga meelin rag aan Ballon d'Or ku guuleysan baa qaaday ayaa ku jira meesha. George waa Ballon d'Or ku guuleystay inuu gana adduunka wuxuu ka soo dhigay kuma jiro. Samuel Eto'o kuma jiro. Didier Drogba kuma jiro. ciyaartoy badan oo u baahna maadaama aad Afrikaan tahay deen meel ma soo galisid. I don't know cidda codaysay dadkaas oo keentay meesha. just saying. marka waynu eegi Ronaldo iyo Messi taageerayaashooda iyo waan ku raaxaysanay nimankaas inta ciyaarayeen waanan qabaa 2-3 sanadood dambe inay sii ciyaarayaan waliba heer sare dad badan ay ka mustawa sareynayaan laakiin waqtigii adduunka u tilinayeen ay wax kasta iyagu haysteen waa dhamaaday. umalayn maayana muddooyinka soo socda amba qarniyada soo socda inay labadan nin oo kale helayno. naam inta ay qaadatay inay labadan nin ku tartamaan top 2ga. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsanaa inta waa football show oo idin leh is aragti dambe oo xiiso leh.